بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا صوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقاضو عدي دن لا الله وفيه انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Waxaan ka hadli doonaa saddex qodob. Qodobka koowaad, Ismaaciil Cumar Geelle shirka uu iclaansaday 3 Oktoobar wuxuu daaran yahay kelmada iga raacay. Qodobka labaad, Puntland oo madaxweyne ku-xigeenkeedii go'aan uu ka soo saaray arrimaha Muqdisho shir uu ku qabtay gaalkacyo, iyadana kelmada aan ka oranaya iyo si guud gaalkacyo waxyaabaha ka jira. Qodobka saddexaad, dadkii dilka ku geystay Galmudug oo maamada iyo saddexdeedii gabdhood dilay maxkamaddii xukuntay, iyadana kelmadaan ka oranaya. intaanan gelin warka waxaan iyadana ku dari doonaa laba nin oo soo jawaabay oo maqaaladii aan shalay duubay ka soo jawaabay, oo mid yahay wasiiru dawle Muqdisho jooga, midna yahay taliye ciidan oo Puntland jooga. labadaasna jawaab baan ka bixin doonaa. arta shirkeedii ayaan xusayaa 25 guuradeedii ayuu Ismaaciil soo dambaysiiyey. wuxuu yiri hal ii yimaado siyaasiyiintii hore, dadkii carta ka qayb galay oo xildhibaanada ahaa, intii ka qayb gashay oo maamulka ahayd, maxaan ku iraahdaa madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaareyaashii hore, dhammaan wuxuu casuntay dadkii Soomaaliyeed. laba ujeedo kale yahay, laakiin taariikh baan ka hormarinayaa carta waxa ay ahayd iyo meeshay ka timi. Allah u naxariistay Abtidoon Xasan Guuleed Abtidoon wuxuu kula dardaarmay wiilka uu adeerka u yahay Ismaaciila, isagoo u qaba qof Soomaaliya inuu yahay. Soomaaliya markay burburtay, Soomaaliya midnimadeeda aan ilaalino, inaan wax ku tarno mooyee Soomaaliya yaynaan wax u geysan. intaasuu kaga tegey. hadda Ismaaciil oo amxaaro korsatay wuxuu ka doorbiday taladii Malla Sanaawi oo ahaa cadowgii Soomaaliyeed. carta waxay ka dhalatay, Allah u naxariistee, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahaana madaxweynihii Somaliland cigaal oo qabtay shir ku dhawaaqay inuu Soomaali isugu keenayo Hargeysa. shirka isaga ah waxay khatar ula muuqatay ninka la Malla Sanaawi oo ahaa cadowgii Soomaaliya. waxa u muuqatay inuu jarjaro Soomaaliya. waa ninka alifay maamul goboleedyadan aad arkaysaan oo dhammaantood baddana gala xuduudana la leh Ethiopia, oo loogu talagalay in laga kalluumaysto iyaga dhexdooda, oo mid uun la helo aakhirka baddiisa la qaato, isagiyo baddiisa la isku qaato. shirka isaga ah in la burburiyo oo shir kale uu iclaamiyo Ismaaciil ayuu soo dhisaan gareeyay ninka la yiraahdo Malla Sanaawi. Ismaaciil waa shirka ninka qaatay oo ka boobay oo ka afduubay cigaal, isagoo cigaal ka caraysan oo ka hadlayana waad aragteen, oo meel babliga oo 10,000 oo qof ay hor fadhido daawanayso kaga hadlay, oo Ismaaciil Cumar Geelle aad u cambaareeyay. shirka isaga ah haddii uu dhici lahaa Hargeysa maxaa ka dhalan lahaa? laba qodob oo aad muhiim u ah baa ka soo bixi lahaa. marka koowaad, Soomaaliya midnimadeedu waxay ahaan lahayd wax aan muran hadda ku jirin. murankan hadda aynu ku jirno oo gooni goosiga ahi gadaal buu ka dhashay. Cabdiraxmaan Tuurna ma qabin, Allah u naxariistee, cigaalna ma qabin. Cabdiraxmaan Tuur wuxuu ku waayayna taasay ahayd, xilka ku waayay, inuu diiday haba yaraatee gooni goosad iyo Soomaaliya in la kala jaro. cigaal oo ka mid ahaa raggii horay uga soo halgamay xornimada Soomaaliya, qaybna ka soo qaatay, waxaa dhici lahayd inuu isna madaxweyne noqdo. waxaa kaloo dhici kartay Hargeysa, maadaama Muqdisho oo caasimadii koowaad ahayd, dagaallo iyo ay ka socdeen warloorana haysteen oo la kala haysaystayba gebigeedaba,
hargeysa inay noqoto magaalo madaxda Soomaaliyeed ee ku meel gaarka maadaama ay secondkii ahayd awalba halka waxa ka soo bixi lahayd marka midnimada Soomaaliyeed oo maanta murug ku jirin waxa aynu hayno oo la yiraahdo 4.5 oo najaasada ah oo meel aan uga baxno aan la nahay oo dadkii la kala qaybinayo qabiil loo kala qaybinayo mala sanaawi baa u soo dhiibay Ismaaciil isagaana noo keenay maanta wuxuu leeyahay waa u dabaaldegayna oo maxaan ka faa'iidin maxaa dhacday oo kale right away markii dawladii la dhisay oo uu ku soo baxay Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaahay xifdiye mala sanaawi wuxuu arkay inuu khatar ku yahay wuxuu arkay inuu yahay nin dawladii hore wasiirka ahaa oo nin cabqari ah wax og ah labo inuu ahaa nin ahlu diina wuxuu ka baqayay markaa in qorshayaashiisa u shaqeyn waayaan Ismaaciil wuxuu ku amray inuu la diriro dawladii uu dhisay carta ku dhisay dawladdu carta ku dhisay oo qabiilka ku dhisay oo isagu dhibaatada u geystay oo madaxweynihii uu colka u beeray oo uu yiri warlooro kama soo qayb gali karaan oo warlooradii ay xamar ku sugayaan oo dagaal ku hayaan buu haddana isagiina wuxuu amray inuu ku biiro oo la diriro wuxuu noogu dabaaldegayaa marka anigu ma garanayo dhibaato aan Soomaaliya Ismaaciil Cumar Geelle iyo mala sanaawi u geysanna ilaa ay hadeer ma hayno farahana kuma hayno Soomaaliyana waxay badbaadi lahayd markay intay tuurto 4.5 ay dib u heshiiso oo ay ama gobol ama tuulo ama degmo ama say doonta ahaatee ama qof iyo cod loo dhan yahay dadka Soomaaliyeed ay isku doortaan dadka waxgalkaana wax loo dhiibo dadkii maalinta naga soo raacay carta ayaa naga harila haday xildhibaano yihiin haday siyaasi yihiin intii un baa recycle ku jira kulligoodna Ismaaciil baa wuxuu yahay role model Ismaaciilna muxuu yahay Ismaaciil waa ninka macruufka ah oo la yaqaan hadda ka hor baan ka sheekay wax uusan ka shaqeyn lama arko wax kasto illegal hub la gado oo dad lagu laayo adduunku kaga magacaaban yahay inuu yahay arms dealer khamri inuu ka shaqeeyo inuu markiisii hore ka shaqeyn jiray haween la gado wax uu ka tagay oo xaraana ninka ma jirto oo ka xaraana odaga xafaayad xiran markii lixaad buu rabaa hadda inuu istoorto wuxuu rabaa marka reer Jabuuti oo dhamaantood fikirkii iyo aragtidii Xasan Guuleed Abtidoon Allah u naxariistay oo ahayd midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya in la wax la taro kulligood aaminsan dad ka Soomaalisan aysan jirin ayuu kulligood hostage ku haystaa hatta aanaha isaga gada wax uu bixiyay lama arko qoyskiisa iyo isaga ayaa waxay ku noqdeen ayax saa u cunaya sida kuwa hadda naga noo samaysmay kulligood isaga koobiyeynaya caruurtoodii iyo naagahoodii iyo iyagiiba isgarab ordaya isaga la koobiyeynaya mawjeeda Ismaaciil wuxuu rabaa marka reer Jabuuti inuu ku yiraahdo soo ma aragtaan Soomaaliya oo over 20 million people ay degan yihiin dhulkeeduna uu dhan yahay 637 oo square meter badeeduna ay tahay 3333 square meter ay tahay badeed ana u taliya laba arrimood buu ka rabaa inuu Soomaali ana u taliya yiraahdo oo marka uu buunbuuniyo isbuunbuuniyo qodobka labaadna uu yiraahdo haddaad wallahi in maqli weydaan reer Jabuuti sidaas meel la idin ku shirshirinayaa intaad islaysaan kuwa aan shirshirinayaa ma aragta kuwaas un baad limitiin idinkuna meelahaas aad ku shirshiri doontaan ujeedadiisu waa inta inuu mar kale isharxo isagoo xafaayad xiran yaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadaas dhibban dhibka ka dulqaaday wuxuu sameeyay markii uu arta qabtay kadib mar dhexe wuxuu samaystay saan oo kale wuxuu isugu keenay niman aan isla hadlayn oo aan isa salaamayn oo isdagaalay buu qolal soo wada fariisiyey sida aad xasuus shirkan hadda uu soo wadana kaasoo kale uu rabaa inuu ka dhigo xasan sheekh maxamuud iyo shariif oo isaga fadhiya oo aan isa salaamayn salaanta iska qaaday siilaanyo iyo gaas oo isdagaalsan oo aan isa salaamayn oo is rabin waa isu keenay wuxuu xilligii dawladii hadda dhamaatay oo farmaajo ay timina waaba isqaawiye waa kii Kenyaatiga la saftay oo Soomaaliya ka soo horjeestay waa kii kula tartamay intay Soomaaliya uga tanaasushay kursigii African Unionka waa kii ku qabsaday igad iyo African Union baa mid looga tanaasulay kii kale uu qabsaday yacni wuxuu ahaa mujrim soo dhigtay xilliga uu arta joogayna dadkii ka carooday waxa kamid ah Digil iyo Mirif oo kaba baxay shirkii shaati guduud iyo kooxdiisii uu watay oo dhan markaas wuxuu soo Allah u naxariistay wuxuu soo samaystay
dad isagu soo samaysto meelaha ka qabqabsaday xildhibaan uga soo dhigay ninkaa dhibkiisii baan weli la noolnahay ujeeddada uu ka leeyahay shirkaasna waa inuu isku bumbuuniyo laakiin soomaali dhibka ugu jiraan idiin sheegaya ismaaciil shirkiisa ka qaybgalkiisa dadkan Soomaaliyeed oo ama ra'iisul wasaareyaal hore ahaa ama madaxweynayaal hore ahaa waxaan kula talinaysaa shirka ka qaybgalin waxa la ii sheegay Cabdiqaasim Salaad Xasan Allah xifdiyay inuusan tagayn hay'ad cadowgii la diriiray isagoo ah buu rabaa haddana inuu isku soo saaro oo doorashadiisa sanadka soo socda ah oo isagu isku soo saaro yiraahdo waa kaas nin balaa baan ahay oday Soomaaliyeed baan ahay ka qabiilka Soomaaliyeed baan ahay maaragtay waxa waxaad ogtiin dagaalkii Muuse Biixi uu la galay SSC inuu qayb ka ahaa waxaad ogtiin inuu ciidamadiisii hiil walaal oran jiray oo uu keenay area meesha la yiraahdo Hiiraan ay ka shaqeyn jireen wax kale ay ka shaqeyn jireen la dagaalanka dawladnimadii Soomaaliyeed shabaabna ay la shaqeyn jireen hubkana iyagu ay keeni jireen dadka lagu leynayo shabaabku ay dadka ku leynayaan waxa uu caan ku yahay maxaan ka faa'iideynaa maxaa ina ka soo gaaraya shirka laba arrimood baa ina ka soo gaaraya waa marka koowaad ninka mujrimka abaynu dadka dhibban oo reer Jabuuti oo beerka dhulka ku haya oo gaajadu ay dishay oo fakhrigu uu wada saameeyay oo qaar uu korontada ka jaro iyo mid uu biyaha ka xirto iyo adoonsiga uu ku hayo baynu uga hiilinaynaa oo uu si qabanaynaa gacmaha waa qodobka labaad caalamku marka uu Donald Trump leeyahay dimuqraadigu dawlad male maamul male leader male Soomaaliya soo xasuusiyeen they have no government nothing no president nothing madaxweynaha isaga amaanayna waa arkay Donald Trump waa nin balaale ninka la caayo leeyahay madaxweynaha ma hay dawladna ma leeyahay yani dadkaas lawiyada isla dhacaya markay gaal arkaan saa u gariirayo oo jaraynaya baa madax noo ah sababta uu noo caayo Donald Trump Ismaaciil Umar Geelle wuxuu ka mid yahay dadka faafiya anaa Soomaaliya iska leh xukuumana marka waad u camiraysaan Soomaaliya ceebteedaad ka shaqeynaysaan waxaan idin kula talinayaa inta isku xishootaan ummadda dhibaato kale ha u geysaan arta waxaan 4.5 ahayn oo ka yimi ma jirto dawladdan hadda aan haysanay in bagaati baa lagu dhisay dawladdiisii waa tuu burburiyay intuu dhisay buu haddana la dagaalamay oo burburiyay marka maxaa ku sharfaysaan oo artayna ka soo raacay oo inoo yaala waxaan qabyaalada ahayn oo ka soo raacay bal noo sheeg dad Soomaaliyeed oo dawladda ka duntay baan ahayn dadkii walaalaheena ahaayoo Soomaaliyeed ninkii hoggaanka u ahaa oo na dhisi lahaa inuu na burburiyay miyaan ku amaanaynaa oo ugu dabaaldegaynaa arrintaa ka laga fiirsado siyaasiga halkaa tagayow ka fiirso ummaduna ishay kugu haysaa inaadan wax gal ahayn doorashana aadan weydiisan karin ba halkaa ka soo baxaysa kalmadda intaas ka hornaya qodobka labaad madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa qaraar ka soo saaray gaalkacyo wuxuu yiri nin mas'uul ka ah dawladda Puntland ma aadi karo xamar xataa haddii uu xanuunsado iskuma soo daaweyn karo Addis Ababa u aadaya shalay markaan hadlayay hadalkaygi waxaa ku jirtay aad baan uga xumahay inaan iraahdo laakiin reer ahaan anigu reerkan ka soo jeedo dawladnimada Soomaaliya waxay ka mid yihiin caqabaadka waaweyn oo hortaagan that's a fact runtaa laga wada hadlaa markii la rabo in la wada hadlo ma aha dadka reer Puntland ma aha shacabka annaga maaha waa dadka siyaasiyiinta nooca waxaa noo hormaray oo noo horgalay intii noogu liidatay waxay arkayaan haddii dawladnimo timaado inay meesha ka baxayaan oo dad macnaleen la helayo oo systemku isbedelayo si ay hostage noogu haystaan marka waxay doonayaan in ay soo hormaraan oo iyaguna xukumaan oo ay naga horeeyaan saa darteed ma ogola dawladnimo inay dhisanto muqdisho lama aadi karo laakiin sababo waa la aadi karaa sabab ogaada dhul Soomaaliyeed bay haysataa waa dawlad cadow ah waa dawladdaas ku farabaxsanaysa Soomaaliya badeedan qaadanaya iyo dhulkeeda waa dawladdaas duulaanka ku ah Soomaaliya iyo jiritaankeeda la dagaalamaysa iyadoo waa la isku soo daaweyn karaa maybe Israa'iilna waa la aadi karaa inay qorshaha ugu jirtay xisaabta in la kala go'aana waa ka shaqeynaysaa Puntland waa siyaasad xumo waa haba yaraatee waxaan la garan karin xamar ninka jooga hadduu ibliis yahay ibliiskii keenay baa Puntland madax ka ah hadduu nin fiican yahayna isna waa nin fiican hadduu dani fiican yahay xasan isagaa noo keenay therefore xasan waa nin fiican hadduu dani xun yahayna
hadduu xasan xun yahay deni baa xun maxaa yeelay deni xasan waxaa noo keenay deni waxaa dadka in lala soo hor istaago waa edab darro gaalkacyo marka maxay maraysaa si guud baan idinka sheegaya waxaa la ii sheegay 47 dil inuu ka dhacay gaalkacyo waxaad aragteen muxaadaradii ama khudbaddii jumcada masaajidka ramadaan khadiibkeedii oo ka hadlaya gaalkacyo dhibaatada ka jirta iyo dilalka ka jira oo dadkii la laynayo oo dadka laayay ay magaalada iska wareegayaan waad arkayseen waa dhaweyd carab saalax iyo nimanka la yiraahdo waxa dhex maray reer khalaf oo dhowr qof la dilay dawladdu hal nin oo ay qabatay oo ay damacdeen qisaasto in dhowr qof oo kale u dhimatay oo ay xataa saldhigii ku weerareen dawladnimadii inay baaba'day oo ka dhamaatay gobolka mudug wadaadku wuxuu sheegay askari noo soo qaban kara ma jiro qofkii dadka laaya haddii shabaabna laayo iyo haddii dadkuna laayaan maxaan ninka la dilay muxuu ku kala jecel yahay cidda dishay anigu waa dhintay ciddii dishayba haddaan dawladdii difaaci karin ammaankaygana aysan sugi karin maxay canshuurta ku urursataa su-aasha la weydiinayaa taa weeye waxaa kaloo la sheegay canshuurta intay ka urursadaan gaalkacyo waxay u leeyihiin meel uma dhaqaaqi kartaan hostage inay u haystaan bay rabaan intay canshuurta ka urursadaan ay garowe la aadaan oo kan khasnajiga ah oo wasiirka maaliyadda waa maxaa ebel faarax liya maxaa faarax inuu lacagta inta ururiyo ka qaado khasnadda wuxuu qabaa shilin kastoo soo gala dalka inuu leeyahay deni buu khasnadiisa gaarkaa ugu shubaa mushaar lama baxsho dadkii gaalkacyo madaxda ka ahaa baabuur gaas kuma shuban karaan baabuur shidaal kuma shuban karaan marka ay ciyaalo ku dakeynayaan lacagtii reer puntland oo dad ku qurux badnaaday oo meelaha ku wareegayo bisnisyada iyo ganacsiyada gashanayaan ma ujeeda maxaa canshuurtooda looga qaadayaa haddii aan dowladnimo la siinayn haddaan la soo qaban karin ninkii dadka ka dilay haddaan amnigooda la sugi karin maxaa serviska loogu qabanaya ay tahay canshuurta laga qaaday wadaadku wuxuu sheegay dhowr 100 kun oo gaari inay joogto gaalkacyo oo mid walba 3 bilood lacag laga qaado guryihiin in lacag laga qaado ganacsiga lacag laga qaado canshuurta la ururinayo reer mudug waa inay canshuurtooda iyagu ceshadaan waa inaysan ugu dhicin khasnada dani for nothing canshuur waxaa loogu talagalay annaga canshuur baan ka qaadaa taxi payer baan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dadka gobolka iyaga haysta dhuuntaanu ka galnaa waxaasaan u baahannahay waa inuu ka jawaabaa indhuhu ka marwirigsiinaya wuxuu ogyahay inuu shaqaale noo yahay ma idin yahay idinka shaqaale mise wuxuu leeyahay xataa haddaa xanuunsatay xamar ma aadi karti oo ma addoon baan ku ahay anigu adiga maada ay dhalay oo ileh maxaa ma aadi waay xamar ma tel abiibba wariise kelmaddaasna intaasaan ka odhanaya reer mudugow shiddo badan baa idin haysata dadka aad laynaysaan joojiya aanada joojiya aana qabiil qofkii qof u dila ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay nebigu sal ll slam laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yaqtarif daman xaraama qofka muslimka ahi inuu rajo ka leeyahay inuu jannada ilaahay galo waasic diintiisana waasic ugu jiro ka zuuli maayo ilaa uu dhiig xaaraana daadiyo joojiya dhiigga aad daadinaysaan joojiya dadka aad laynaysaan kelmaddaasna intaasaan ka oranaya qodobka saddexaad galmudug waxaa ka dhacday la yaab leh waxaa lagu dilay 3 gabdhood iyo hooyadood ayaa waxaa lagu dilay gobolka galmudug waxaa la saaray maxkamad eedaysanayaashii 3 ahaa ee lasoo qabtay ayaa maxkamad la saaray 3 jaaj ama 3 garsoore ayaa waxay xukumeen in 2 ka mid ah dadkaas 5 sano lagu xukumo kii 3aadna lagu xukumo 3 sano ogaada 3da nin waa qaatiliin waa dadil weliba qaatilnimada waxaa u dheer biri mageyday laayeen hooyo iyo gabdha ay dhashay bay laayeen ninka haweenka laayaa waa nin dhintay oo aan wax nafaca lahayn haba yaraatee wax damiirana aan lahayn haweenka ninka ka oohiya baan damiir lahayn iska badaakan dila oo dhiiggeeda banaystay nimanka iyaga ah oo 3da ah oo ah garsoorayaasha xasan cabdulaahi cali ilka weyne waa nin reer guriceela waa guddoomiyaha maxkamadda gobolka galguduud ninka labaad waa cabdicasiis ciise cali waa reer cadaado isaguna waa garsooraha maxkamadda gobolka galguduud garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka galguduud
كصدحنا وأحمد شيخ علمي ورير بلنبل قرصوري ويسنا محكمة قول حق الجدود كترسان صدح دبا waxa la ii sheegay inay ka tirsanaayeen suufiyadii maxamuud macallin maxamuud qoladii waa la buuba irka la aada yaa xanaan yaa salmaan nimanka inay ka tirsanaayeen oo xaq jir ah haddana ay bilaabeen inay laaluush qaataan bal qof dilay baan 5 sano ku xukumaya iyo 3 sano waxa la ii sheegay aan ku amaanaya maamulka galmudug oo madaxweynaha ka yahay qoorqoor in laga qaaday keiskii lagala wareegay maxkamadda sarena loo gudbiyey warkoodiina la tuuray keiskiina mar labaad la gelayo reer galmudug waxaan kula talinayaa iyo dowladaba nimankaas sida ugu dhaqsaha badan ha loo qisaaso qofkii qof dilay waa loo dilaa qofka gabadha dilay waa ka xun yahay qof ninkii nin dilay intay isdirireen ninka inta guri reere ku jira oo birimageyda ah oo haweena u tagay xabadda la dhacay daalin weeye noocaasi inayna dhex joogaanna maaha waa dhaweydna gabdha la laayay oo mudug lagu laayay baa jira waa reer mudug iyo galmudugow sida isu dhaamanimayo dadka dilkooda daaya dadka dhiigooda badbaadiya kalmadaasna intaasan ka oranaya qodobka ugu dambeeya 2 nin baa waxay iiga soo jawaabeen ninna wuxuu ka tirsan yahay wasiir dawladda ka yahay xukuumadda xasan sheekh maxamuud ninka waxa la yiraahdaa Ahmed Umar Ilkadheere baa la yiraahdaa Ahmed Ilkadheere horta yuu yahay Ahmed wuxuu ka xumaaday hadalkii aan ka sheegay Indhakorey by the way Indhakorey liis dheer oo kale baan helay iyo dadkii uu laayay sawiradoodii iyo dhaawacyadii uu geystay iyo dad uu dhibaatooyin waaweyn u geystay oo sawiro graphic ah baan helay waxaan helay liis dheer oo hadeer bil ka hor loo gudbiyey laamaha xuquuqul insaanka ee New York waxaan soo ogaaday markaa Ilkadheere inuu yahay nin baasaboorka Norway haysta waxaan kaloo soo ogaaday inuu ahaa gacan yarihiisii isaga marka uu laynayo 4 nin oo reer Axmed 4 qof oo gabadhu ku jirtay Saynab Sandheer 4 godka la iskula aasay 4 markuu laynayo inuu la socday hala socday 4 qof mid kamid inuu isaga seedigiis ahaa oo uu walaashi qabay walaashiis deerow walaashiisu qaba caruurtiisa abtigood bay ahay isaga uu ahaa turjubaan oo hay'adaha iyo ula hadli jiray ninkii wuxuu qori jiray buu ahaa Indhakorey baa wuxuu geystay Jubbaland inuu ka noqdo ku-xigeenka guddiga doorashooyinka oo Xamse 3 ii keen markii uu lahaa ku-xigeenkiisii way haddana Xamse wuxuu ka dhigay wasiir dawlaha bay'ada Bashiir Goob ku-xigeen u yahay ninka isaga ahi waa ninkii inta qof uu dilay Indhakorey la dilay co-conspirator waxay ku fiican tahay inuu leeyahay baasaboor Norwich ah ninkaasi inuu ka mid yahay dadkii dhibka geystay wuxuu soo geliyay comment buu ii soo diray facebookiisu soo geliyay isla markiina waa uu tirtiray Ahmed waxa uu yiri markuu soo geliyay wuxuu yiri ina xirsiyow ninka la yiraahdo Xasan Sheekh waxaan ku xusuusinayaa buu yiri anigoo aan kugu sii fogaanayn Xasan Sheekh idinka shalay noo keenay marka anigu wuxuu igu khasbayaa igu xijinayaa ama igu lifaaqayaa dani adinka shalay noo doortay buu yiri maantana anaga dooranayna ninka la yiraahdo Cabdirashiidna shalay hadii uu ahaa asxaabu Tayuur Abu Tayuur haduu ka tirsanaa oo Abu Tayuur ku soo barbaaray oo Abu Tayuur uu ku hadana jisaaray Abu Tayuur wuxuu yiri haduu ahaa asxaabu Tayuur maanta waa mas'uul dawladeed oo xil qaran haya intaas soo geliyay facebookiisa degdeg buuna u tirtiray waana kaas clipkii uu soo geliyay oo aan screenshot ka qaadnay markaad linkiga taabatid ma ku furmayo wuxuu u tirtirayna wax kala ma wuxuu ogaaday consequenceska iyo dhibaatada kaga imaan karta inuu afka la soo galo beejka Cabdi Xirsi wax runa lagu baahiyaa wixii lagu baahiyana xaq weeye haddaad Indhakorey jeceshahay dambigii uu galay oo dilalka ahaa tirada badnaana aan la gashay liis dheer oo cusub baa soo bixi doona oo kaga hadli doono dadka uu laayay wasiir adkayso kursiga
kelmaddaas intaasa ka oranaya waxaa kaloo ila soo hadlay nin la yidhaahdo axmed jaabiri jaamac oo korneyl ah oo ah gaashaanla sare ahna taliyaha kuliyadda generaal cali nuur waa puntland waa nin taliye ah waa nin ka tirsan dowladda waxa uu ii soo qoray shiikh waxbaha qaylin shalay markii aan ka hadlay arrintii deni iyo ayuu soo galay waxbaha qaylin mar aan fogeyn magacaaga maxkamadda ciidanka waa ka maqli doontaa keligaa ma ahan kuwo badan oo daacish iyo shabaab quudin jireen baa dhawaaqaya wuxuu igu eedaynayaa inay shabaab iyo daacish aniga dhaqaale isiiyaan oo iquudiyaan kuwaasaa dhawaaqaya buu yidhi laakiin wallaydaan ummaddan dhiiggooda dib u miiranayn walaalle anigu ummaddan dhiiggeeda miirtay xaggee ku aragtay ma deni baa igu khaladay deni weeye ninka dhiiggiina miiranaya 30 sano waddankii ma tegin 30 sano marka xaggee baan dhiiggaaga ku miirtay oo kugu arkay maybe 30kaasaad kadib dhalatay haddaad ka weyntaana wax badan kama weyn korneyl meelaa ka keentay aanan garanayna waa lagu saaray adigoo ah gaashaanla sare xil dowladeed haya inaad commenti soo gashin oo Facebook comment ka soo qortid is disgusting disgraceful way waxay tusaysaa deni dadka uu soo urursadaa inay yihiin dad aan nafac iyo macno toona lahayn inta dadka ugu liidata baa u shaqaysa maxaa yeelay nin damiirli lama joogi karo anigu wuxuu igu eedaynaya inaan dhiig miirata ahay oo dadka dhiiggooda aan miirto isagoo ninkii dhiigga dadka miiranayay oo aan ka hadlayay sida uu dadka u bahdilo u boobay oo hantidoodii u wada qaatay oo beertaas aad arkaysaan iyo compoundkaas aad arkaysaan iyo kuwa ka sii badan uga samaystay isagoo aan arkayn oo u jeedin oo dacwo ka qabin buu aniga wuxuu ileeyahay anoo shacaba haddii xataa aan puntland joogo goormaan dhiig miiran karaa maanaba awood haysta iyo xil isagana intaasaan ka oranaya waxay ku tusaysaa dadka madaxda u ahay inay dad baaba yihiin kama jawaabo anigu waxyaabo badanoo social mediaha layga soo dhaho laakiin dadka xilalka haya iyo dadka dowladaha u shaqeeya waa khasab in loo jawaabo ama laga falceliyo anigoo keligay wadaadda ku ah bay saa u qaylinayaan oo gariirayaan wadaadow haddaa kulligeen geli lahayn ka warrama oo siyaasadda falanqayn lahayn oo dhacdo kastoo dhacda 10 wadaad oo 10 meelood kala jooga khudbada jimcada lagu qaadan lahaa masaajid kasta khudbada jimcada lagaga jeedin lahaa oo la dhihi lahaa dowladdii baa dabdaradan iyo ficilkan khariban samaysay aynu samayn lahayn maxay idin la tahay dalku waa badbaadi lahaa aniga say la tahay bal wadaadow dib ha loo daraaseeyey arrintaa hadday muuqato inay macquul tahayna dee baasha soo wada gala waad arkaysaan hal qof bay ka gariirayaan kulligooda qaylinayaan oo xamar ilaa gees raas casiir raas kambori ay saas igu soo yaacayaanoo soo dagaalamayaan let's go wadaadow aan arrinta galno innagaa iskale markaan saaxadii u bannaynay baa dad jahala ah oo cawaane intay qabsadeen saaxadii baa iyaga la dhegaysanaya maalin walba wadaadaa la caayaya wiil yara wuxuu usoo farabaxsanaya ama gabar yara oo aan war hayn diinna aqoon cidna wax barin ya baa waxay usoo farabaxsanayaan culimadii inay caayaan jamaaca hebel iyo jamaaca hebel leh ma ujeeda waxaa keenay firaaqa keenay meel kastoo firaaq ka dhacana qolaa buuxisa saasoo kale khayr badan baa idiin rajaynaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu